kulankii xalay ee cirromadiinta islaamka ayuu lid ku ahaa halkee iyo sidee ayuu kulanku u dhacay kulanku waxa uu ka dhacay magaalada Davos ee Switzerland waxa uu dhacay xalay waxa uu ku dhacay jawi caalami ah oo siyaasiyiintu ku kulmaan kulankani waxa uu ahaa casho sharaf iyo kulan rasmi ah oo lagu xoojinayay xiriirka diblomaasiyadeed maxaa ujeedkiisu ahaa kulankan si kooban aqoonsi u raadinta Somaliland kulankani wuxuu qayb ka ahaa dadaal Israa'iil Somaliland ugu raadinaysa aqoonsi rasmi ah dhawaan waa tii Israa'iil noqotay dalkii ugu horeeyay ee si buuxda u aqoonsada Somaliland haddaba kulankan maxaa looga wada hadlay waxay ka wada hadleen waxay dhinacyadu ugu yeereen iskaashiga istiraatiijiyadeed waxay ka wada hadleen Israa'iil iyo Somaliland dhinacyo ay ka mid yihiin amniga iyo difaaca tiknoolajiyadda iyo beeraha biyaha iyo caafimaadka tamarta iyo macdanta xiriirka labada bulsho iyo ganacsiga mustaqbalka dhaxmari kara kulankani waxa lagu tilmaamay inuu ahaa mid muhiim ah oo u furaya albaabo iskaashi istiraatiijiyadeed labada dhanba ay si cusub uga faa'iideysan doonaan arrinkani sidee u saameynaya geopolitics-ka geeska Afrika aynu dul saaranahay maanta aynu marka hore ka eegno istiraatiijiyadda caalamiga ah Somaliland waxay ku taallaa meel istiraatiiji ah oo ku tirsan Gulf of Aden iyo Red Sea waxayna u dhowdahay marinka Bab al-Mandab oo ay maraan ganacsiga caalamiga ah ee u kala gooshaya Yurub, Aasiya iyo Bariga Dhexe sidaa darteed Israa'iil Somaliland waxay ka dhaxalagtaa fursad ay ugu ballaaran karto gobolka gaar ahaan marka loo eego tartanka ku saabsan ammaanka badda iyo xiriirka beesha caalamka aan haddana iska taagna dhanka saameynta khilaafka guud ee Bariga Dhexe isku xir ay yeeshaan Israa'iil iyo Somaliland kaasoo uu dah rogayay kulankii xalay waxa uu ka dhigan yahay in Israa'iil ay kordhinayso awoodeeda gobolka xoojinayso xiriiradeeda cusub ee diblomaasiyadeed waxa teer iyo 2023 muuqatay in khilaafka Bariga Dhexe uu saameyntiisa ku ballaaranayo geeska Afrika sidee dawladda Soomaaliya u saameyn karaa kulankii xalay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay si adag u cambaaraysay tallaabada hore ee Israa'iil iyada oo ku tilmaantay mid sharci darro ah oo khatar ku ah midnimada iyo xuduudda Soomaaliya cabashada kadib kulankii xalay Soomaaliya waxay qaadi kartaa tallaabooyin dheeraad ah oo ay ku difaacayso danaha qarankeeda waxa ugu horeeya dardargelinta diblomaasiyad firfircoon oo ku wajahan beesha caalamka gaar ahaan midowga Afrika iyo qaramada midoobay xoojinta wada hadallada gudaha ee Xasan ku dhawaaqay si loo mideeyo aragtida gudaha qaranka ee ku wajahan kala go'da dalka maxay Somaliland ka faa'iidi kartaa kulankii xalay waxa uu foolaadsan aqoonsi caalami ah waxa kale oo ay la soo hoyatay Somaliland xalay iskaashi siyaasadeed iyo dhaqaale Somaliland waxay heli kartaa fursado dhaqaale horumar iyo taageero amni oo ka yimaada Israa'iil iyo dalal kale mustaqbalka Somaliland waxay ku biirtay Abraham Accord ama mideynta diimaha saddexda ah oo ka hor imaanaysa aayadaha ku jira suurta Kaafiruun Israa'iilse waxay adeegsan doontaa saameynteeda siyaasadeed si ay dalalka caalamka uga dhaadhicisay inay aqoonsadaan Somaliland gaar ahaan dalalka galbeedka iyo Aasiya kulankii xalay waxa kale oo lagu soo qaaday in Israa'iil ay xiiseynayso inay hesho ogolaansho ah saddex military ama marin amni oo ku yaala Somaliland taasoo xoojin karta ka hortagga khataraha marin badeedka sida ay warisay wakaaladda Somalia Today haddaan isla eegno aragtida dadweynaha ee kulankii xalayna waxaa jira dood bulsho oo xooggan oo Soomaalida ka dhax qaraxday oo ku saabsan aqoonsigii Somaliland ee Israa'iil siisay iyo kulankii xalay dhex maray madaxweynaha Israa'iil iyo ka Somaliland Soomaalidu waxay u kala bixin qaar taageersan oo ku noqon waqooyiga dalka iyo qaar ka soo horjeeda oo u badan reer koonfureedka su'aashaas maalmahan taagnayd waa haddii Soomaaliya ay maamusho hawadeeda sidee ayay u ogaan weyday safarka cirro marka aynu eegno xaqiiqada amniga hawada dawladda federaalka ee Soomaaliya si buuxda uma maamusho dhammaan hawadeeda inkastoo sharci ahaan ay xaq u leedahay waxaase jira farqi u dhaxeeya xaq sharci dajero iyo xakamayn dhab ah de facto Soomaaliya waa dawlad la aqoonsan yahay oo xaq u leh maamulka hawadeeda laakiin tabarteeda oo ah dhab dhulka taala ayaa xadidaysa sababaha dawladda federaalka ee Soomaaliya u ogaan weyday ama u xanibi weyday duulimaadkii madaxweyne Cirro waxa ugu weynaa waxa uu ka duulay garoon aan si toos ah ugu xirnayn Muqdisho ama iyadoo aanay maamulin madaxda Somalilandna ma raadsadaan ogolaansho dhanka Soomaaliya ah marka ay safrayaan maadaama ay isku arkaan madax dawladeed oo madax bannaan haddii aan runta ku soo dhawaano dood rasmiga waxa weeye Soomaaliya hadiiba ay ogaan lahayd miyay haysatay qalab xoog siyaasad ama farsamo ay ku xanibi karto safar noocaas ah iyadoo aan khatar weyn gelin qodobka ugu weyn ee aan ku soo xidhayo waa aqoonsiga Somaliland kuma imaan karo hal kulan ama hal dal oo u ololeeya laakiin waxa uu ku imaan karaa marka Soomaalidu arrinka ka heshiiso kana wada xaasho waxna isaga ogaato haddii ay Soomaaliya rabto inay ku guuleysato doodeeda midnimada waa inay midaysaa siyaasadeeda joojisana waxyaabaha kordhinaya khilaafaadka gudaheedana noqotaa dal shaqeynaya oo ayagu gudahooda ka midaysan